waxaan noqday tiktoker tan waa sheekadii iga qabsatay ee tiktokta dhageysi wanaagsan waqtigan saawsi horreyn baa waxaan wada sheekaysanay aan saaxiibnahay ninka isaga ahi waa nin ka waramaya xaaladiisa inaan sidii hore aan ahayn in cibaadadiisa ay hoos u dhacday inaanu nin wanaagsan aanu ahayn sidoo awal ahaan jiray ka hor hadda ninkaasi wuxuu ka waramayaa in waxyaalaha sababta u ah inuu xumaado ama aan si kale u dhigay xumaanihiisii uu sameynayay waxa uu ku dhex daray markuu uu sheekeynayay warniyo tiktoktana waan daawadaa tiktoktana waan daawadaa dabeedna arrintaasi su'aal ay ugu dhalisay warniyo tiktokto ma meel lagu xumaadaa warniyo tiktokto ma meel xumaantu fadhido loogu tagaaya way weliga mana isticmaaleen markii ugu horeysay aan maqlo ay ahayd qoftee sidaa iga sheekeynaya wuxuu waqtigu socdaba xoogaa waqti dheer kadib waxa aan go'aan ku gaadhay inaan tiktokta aan adeegsado ma u adeegsanayo daawasho laakiin waxaan u adeegsanay inaan ku soo bandhigo fiidiyodeeda kolley maadaama marna aan facebook aan isticmaalo mar youtube aan isticmaalo ida lafteeda maxay ii diiday inaan adeegsado waayo inta badan saddex sababood ayaana igu kalifay inaan isticmaalo waa sababta koobaad horta shirkaddan waa shirkad aad u koreysay weliba si dhaqso ah taa lafteedu marka waxay tuustay inay dad badan ku xidhnaan doonaan sidaa ogeed intay bilowgatay ka faa'iideyso waxa arrin kale oo isaguna muhiim u yahay facebook halka kaaga waxa weeye xidhan yihiin dad yow koobani waxa suurtagal ah waqti kooban in dad aad iyo aad u badan ay kugu xidhnaadaan tiktokta oo reachka fariintadu intay gaadhaysaa si yar oo fudud ayuu dad badan oo aad u badan u gaadhaya arrinta kale muhiimka iyaduna waxay tahay in waxa weeye fiidiyoo yar oo kooban ay soo bandhigto fiidiyooda kooban dadku way xiiseeyaan sida ogeed Damian Chaniska ka faa'iideysto fiidiyoo yar oo kooban oo macna iyo faa'iido ku fadhiya dadka oo soo bandhigo asbaabihii igu riixay intaas yahay ase haatee waxa weeye in baa oran jiray intii la garanayay ama intii la yaqaanay way soo dhaaftay wixii aanu galay cagsigeeda iyo lidkeeda iyo boqol shay oo ka daran ayaan kala kulmay fiidiyowga uu iska dheeraad marka qaar 10 mir noqda 8 mir buu noqda 6 mir buu noqda markay ugu yartay waa 3 mir iyo wax ku dhow sida ogeed ninkii inta waqtiga dheer duubi jiray way ugu adkaatay in halka mir ee lagu soo bandhigo tiktokto inaan wax ku soo bandhigo dabeedna hal mir maxaad ku gudbin fariin intee leeg baad ku gudbin tale intee leeg baad ku bixin kartaa 10 baad ku gudbin kartaa intuba waa maya mid kale taa ka sii daran oo ka qoslayna kugu daro sidaan laha hal mir uga faa'iiday si fiidiyowga hal mir ugu fadhiisto ayaa waxa aan gaaray heer hadalkayga uu degdego oo speed aan ku hadlo oo degdeg aan ku hadlo dabadeedna aan qofkii la hadlayaan arkay aan degdegay hadallada qaarna ku marganay waxaan arkay anoo xiisad ku jira oo hadalladii ku marganay ninkayga awalan sida ahaan jirin sababta mid garanaysaa waa tiktok ti halka meer ka gaarsiidi waxaasay ibaday arrinkaas wuxuu arrinka marka aan fiidiyowda soo bandhigayo amaba aan wax ku dhex abuurayo wax ku dhex sameeyay tiktokta haddaba markaad wax isticmaalaysid isleeday wax soo bandhig lama waayayo oo wax dhacay inaad tiraahdo marka qaar arbaliyer eeg meesha waxa dhex yaala sida ogeed waxa bilaabay in waqtiyada qaar waqtigayga wax ka mid ah balan yar daawado hadda waxyaalihii ila kulmay markii daawashadana balan kula wadaago kow horta wax wada maran waxaynu oran jirnay yaraantii waxa weeye googa cigale waxaad sheegtaa xeradaydu waa wada u la qaata male tiktoktu sidaa si ka daran bay noqotay xeradaydu wada video la qaata male wax wada jaasaya wax birqaynaya wax qofka ka wada ciyaaraya wax wada heesaya wax jirkooda qaawan soo muujinaya waxa wax ka daran ma kala kulmay waxaan arkay badeecada ugu muhiimsan ee meesha lagu iibiyo jirkaaga oo gabadha ka qurux badantay isla sidoo kale quruxdeedu ay tahay mid cid waliba ay arkayso daawanayso gaar ahaan dumarkan ka hadlaya ay dad badan ay ku helaysaa dad badan ay ku xidhan yihiin gabadh iyadoo maydhanaysa soo bandhigaysa gabadh waxa weeye iyadoo waxa weeye jaasisi soo bandhigaysa waxa ay wax ka darmad mashaad kula kulmaysa hadoogow saaxiibka waxa ma baarbaaro ma raadiyo war saadaad u gashay waxa iska hor imanaya hoo bariiska mid taa ka daran baaba jirto tii hore fadhiisay waxyaalaha arkay waxa kamid ah nin weyn oo Soomaali afkeenu ku hadlaya haddana ninkaas waa nin aanad odhanin raganimadii wuxuu ka sitaa mooyaane garkaas mala ka sitaa iyo wajiga sareen arkayno nin jirkiisa iibinaya nin baridiisa iibinaya dumarka xunxunisay jirkooda ay u luxaya waxyaalahan arkay waxa kamid ah waqtiyada qaar oo kuwa horaad mooday inay tan dhaantaba comedy madadaalo qosol kaftan wax sheekooyinka qoslinay wax wada qosol midhoon qosolka mushkilad ma lahayn inuu qofku wax qosol leh oo madadaalo u daawado laakiin ceeb oo dhan waxay ku jirtaa in noloshaada oo dhan ay wada qosol noqoto waxa daawanayso dhan wada qosol noqdaan comedy socdo inaad noqoto ku bushaaraan ku siiyo joker bad noqon doonta laakiin jokerka nolosha la joogo wax badan kama qabto cidina xisaab badan uma hayso ta ugu daran waxay tahay waqtiga ogaan maysid sidoo u socdo waqtigu degdeg buu soconaya
hal mir baad isleeday waa videogiibu hal mirir ee daawo halkii mirir wuxuu keensanayaa in 100 video aad daawato adoon is ogeyn waxaad isdhaafisay waxaad daawatid intaba sidaa uga laba go'aan oo adag baan gaadhin noloshayda inaan dib u dambeeyo TikTok ta aanan waxba ugu soo bandhigin isla sidoo kale inaanan isticmaalin anigoo awalba aanan isticmaalin feedback iyo fikrad xun ka haysta walaalow haddaad doonaysid in waqtigaaga kuu kordho haddaad doonaysid in cimriga Ilaahay ku barakeeyo iska ilaali wax kasto xumaanaha iyo macaasiyo dunub macaasida iyo dunubtana waqtigan hadda aynu joognay weerarka qofka waxa weeye muslimka toosan arrintaas ay ku hayso waxa kamid ah meelaha laga weeraro baraha bulshada gaar ahaan TikTok ta waqtigaaga ilaasho TikTok tu waqtigaaga way dilaysaa damiirkaaga iyo xishoodkaaga ilaasho TikTok tu damiirkaaga iyo xishoodkaaga way dilaysaa ilaasho waxa weeye toosnaantaada waxaad noqonaysaa waxa weeye haddaad meesha daawato toosni ka dheer ugu yaraan waqti dheer ba kaaga lumaya cibaado badan ay kugu seegaysaa isla sidoo kale waxa taa dheer qof waxaad noqonaysaa maalayacniga mar walba dhow markaad waxaad daawanaysaa comedy uu yahay iyo waxyadooda liita iyo waxyaalaha waxba laga kororsanin ogow somehow waxa si un bay kugu soo duxiyo malaayacnimada si un bay kugu soo gaari doontaa ugu yaraan caadsi iyo wahsi aanad far dhaqaajin karin ayaad ka faa'iidi doontaa waxaasoo dhan markaad eegto waqtigaagu waa qaali cimrigaaguna ka sii qaalisanay warniyahow gabadh yahay fadlan waqtigaaga ilaasho malaayacnigana ha ku khasaarin السلام عليكم